asxaabta maanta garabkiina u baahanahay waxyar ka hor waxaan ka imaaday dhakhtar ku takhasusay arrimaha maqaarka. sababta dhakhtarkaas ugu tagay waxay tahay anigu waxaan ahay dadka kilkilaha ka dhidido. weligay kilkilaha ayaan ka dhididi jiray, habeen ha ahaato, maalin ha ahaato, samar ha ahaato, winter ha ahaato, mar walba kilkilaha aad ayaan uga dhididaa. waxaan tijaabin male, wax kaste almost waan tijaabiyey, wax ii shaqeeyeyna ma jiraan. marka ugu dambeyntii danta waxay ugu khasabtay dhakhtar inaan u tago. dhakhtarka markaan u tagay baaritaan uu suubiyey, baaritaan kadib wuxuu ii sheegay problemkeyga iyo xalkeyga. wuxuu yidhi xalkaaga wuxuu ku jiraa kilkilaha in lagaaga duro botox. horta botox markuu yidhi anigu waa isku naxay oo waxaa isdhahay, ama weligii waxaa isdhihi jiray botox dumarka loogu talagalay wejiga iyo faruuraha inay iskaga duraan, isma dheheynin kilkilaha haddii lagaaga duro idid ayay celinaysaa. marka asxaabta taladiina iyo garabkiina u baahanahay, bal maxaan suubiya? dhakhtarka taladiisa miyaan qaataa mise idinka ayaa ii sheegaya talooyinka dhakhtarka ka duwan? marka fadlan haddaad tale ii haysid commentiga igugu soo qor, balan waay taladaada waan qaadanaa. hadda waxaan u gudagalaa fideoga iyo mawduuca uu ku saabsan yahay. dad badan waqti dheer ayay jiimka aadayeen, laakiin dhabarkooda marka la fiiriyo sidii la rabay uma dhisna. marka fideogan waxaa xabxabad u kor istaagaa khaladaadka dadka ay suubiyaan markay dhabarka training karaynayaan. fideogan ilaa dhammaadkiisa hadaa fiirsatid waxaan suubi ku dhahayana aa suubisid balan waaye, dhabarkaaga iyo suu dhisan yahay waxweyn ayaa iska bedelayo. asxaabta soo dhawaada, saaxiibkii Maroli Masal waaye, mininka mininkiini waaye, adiga walaashay walaalkay. haddaa janalkan ku cusub tahay, ani magacayga waa Cabdinaasir. waxaan suubiyaa fideoyo ku saabsan jirdhiska iyo raashinka. fideoga intaa guda galin waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaya fideogan like ina saartaan, comment kasoo bixisiin, asxaabtiin u share garaysaan. haddaa weli subscribe dhihina fadlan subscribe dheh. waa mahadsantihiin. waxaa noo balaneh jiimka. asxaabta saa jeedaan waxaan joogaa jiimka. maanta ballanta waxay ahayd inaan suubiyo dhabarka. jimicsigan ayaan ka bilaabay seal row. waxaan ka suubiyey 4 set, markiiba waxaan suubiyey 10 jeer. saa arkaysiin waxaan isticmaalayaa miisaan aan kontrooli karo. exercisekan miisaan culus ma lagu suubin karo sababtoo shaqada waxaa qabanayo dhabarka iyo gacnaha bes. dadka markay suubinayaan bend over row waxay ku suubiyaan miisaan culus sababtoo bend over row markaa suubinaysid waxaa isticmaalaysaa lugaha, qaarka dambe, dhabarka qaybta hoose, dhabarka qaybta kore iyo gacnaha. murqo badan ayaa shaqada ka qayb qaadanaya, markaasna way fududahay markaa bend over row aa suubinaysid inaad ku suubisid miisaan culus. laakiin jimicsiga markaa suubinaysid haddaa isku daydid inaad ku suubisid miisaan culus, markaas waxaa ka qayb qaadanayo dhabarka qaybta hoose, markaasna murqihii loogu talagalay shaqada ma qabanayaan. markaan jimicsigaas dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey neutral grip lat pull down. waxaan ka suubiyey 4 set walba waxaan suubiyey 10 jeer. saa arkaysiin miisaan aan kontrooli karo ayaan ku suubinayaa. markaan soo jiidaayo iyo markaan kor u celinayaba waxaan isku dayayaa inaan kontroolo. dad badan waxay suubiyaan khaladkan. jimicsiga markay suubinayaan waxay ku suubiyaan miisaan culus, markaasna waxaa imaanayso dhabarka qaybta hoose shaqada inay ka qayb qaadato. mar haddii dhabarka qaybta hoose shaqada ay ka qayb qaadato, markaas murqihii loogu talagalay sidii la rabay shaqada ma u qabanayaan. markaasna meeshii la rabay inaad ka dareentid ma ka dareemaysid. marka muhiim waaye jimicsiga marka aad suubinaysid inaad ku suubisid miisaan aad kontrooli karto, isla markaasna aadan si sahlan uga suubin karin 8 ilaa 10 jeer. markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey just supported row. waxaan ka suubiyey 4 set walba waxaan suubiyey 8 ilaa 10 jeer. saa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin 8 ilaa 10 jeer. haddaan dhaho miisaanka ku daraa, markaas waxaa imaanayo dhabarka qaybta hoose shaqada inay ka qayb qaadato, markaasna murqihii loogu talagalay si fiican shaqada ma uga qayb qaadanayaan. exerciseka markaa suubinaysid waxaa muhiim ah inaad ku suubisid miisaan aad kontrooli karto. waxaa kaloo muhiim ah miisaanka markaa kor usoo jiidaysid scapularkaaga inaad gadaal u celin kartid. markasta muhiim waaye jimicsiga marka aad suubinaysid inaad ku suubisid miisaan aad kontrooli karto, islamarkaana aad si sahlan uga suubin karin 8 ilaa 10 jeer. markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey reverse grip lat pull down machine. waxaan ka suubiyey 4 set walba waxaan suubiyey 8 ilaa 10 jeer. saa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aan si sahlan uga suubin karin 8 ilaa 10 jeer. haddaan dhaho miisaankan ku daraa, asiga xitaa waxaan ka cabsanaa dhabarka qaybta hoose shaqada inay ka qayb qaadato. dhabarka qaybta hoose haddii shaqada ay ka qayb qaadato, markaas murqihii loogu talagalay shaqada si fiican ma u qabanayaan. marka ogow markastoo jimicsigan suubinaysidna
ha ku suubinin miisaan culus, waxaa ku suubisaa miisaan adiga kugu filan, islamarkaana aad kontrooli karto marka aad suubinaysid, islamarkaana aad si sahlan uga suubin karin 8 ilaa 10 jeer. Markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey dual cable lat pull down, waxaan ka suubiyey 4 seed walba waxaan suubiyey ilaa 10 jeer. Saa arkaysiin hadda gacnahayga shaqada si kala duwan ayay u qabanayaan. Fiiri, waxaa muhiim ah jimicsiyadaada inaad kusoo dartid jimicsiyo lugaha ama gacnaha shaqada si kala duwan u qabanayaan, marnaba ma ogid jirkaaga qaybta xooga badan. Marka saas darteed waxaa muhiim ah jimicsiyadaada inaad kusoo dartid jimicsiyo lugaha ama gacnaha shaqada si kala duwan u qabanayaan. Saa arkaysiin waxaan ku suubinayaa miisaan aan si sahlan uga suubin karin ilaa 10 jeer, islamarkaasna waxaan isku dayayaa inaan kontroolo. haddaan miisaanka kana ku daro maxaa imaanaya markaas dhabarka qaybta hoose shaqada inay qabato, markaasna maxaa imaanaya murqihii loogu talagalay shaqada si fiican inay u qaban waayaan. Markii aan dhameeyey jimicsigaas waxaan ku xijiyey dual seated row, waxaan ka suubiyey 4 seed walba waxaan suubiyey ilaa 10 jeer. Saa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aan kontrooli karo, markastoo miisaanka soo jiidaayo markaan celinayaba waxaan isku dayayaa inaan kontroolo. mideeda kale weli waa ujeediin gacnahayga si kala duwan ayay shaqada u kala qabanayaan. rooyadii hore aan soo suubiyey waxay ahaayeen kuwa gacnaha hal mar shaqada wala qabanayaan, haddana gacnaha laba si kala duwan ayay shaqada u kala qabanayaan, sababtoo ah marnaba ma ogid jirkaaga qaybta xooga badan. marka waxaa muhiim ah jimicsiyadaada inaad kusoo dartid jimicsiyo gacnaha ama lugaha shaqada si kala duwan u qabanayaan si jirkaaga uu baalansi u noqdo. Markii aan dhameeyey dhabarka waxaan ku xijiyey tricepska murqaha ku yaalo gacnaha qaybta dambe. waxaan ka bilaabay exercisekan school crusher, waxaan ka suubiyey 4 seed walba waxaan suubiyey 10 jeer. Saa arkaysiin waxaan ku suubinoyaa miisaan aan kontrooli karo, islamarkaana aan si sahlan uga suubin karin 10 jeer. marka exercisekan dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey dhiibis, waxaan ka suubiyey 4 seed walba waxaan suubiyey 10 ilaa 15 jeer. saa arkaysiin dhibiska xitaa waxaan ku suubinayaa miisaan aan si sax ah u suubin karo. waa ogahay adiga videogan fiirsanayo waxaa isweydiinaysaa why tricepska ula suubinaysaa. Fiiri, exercisyada dhabarka waa exercisyo jiidma ah, markaa wax jiidaysid muruqan hore wuu ka qayb qaadanaa. marka maantoo dhan 5-6 exercise oo jiidme ee marka aad suubisid muruqan wuu ku daalan yahay ama bicepska wuu ku daalan yahay. markaa dhabarka suubinaysid waxaa muhiim ah haddaa muruq kale ku daraysid inaad ku dartid tricepska, sababtoo tricepska maanta dhan wuu nasanaya, markaasna miisaan culus ama si fiican ayaa u suubin kartaa. maalintaa buushka suubinaysid oo wax riixaysidna kan shaqada wuu ka qayb qaadana, tricepska wuu ku daalaa. maalintaas waxaa fiican bicepska inaad ku dartid. asxaabta videoga intaan ka bixin waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaya videogan like inaad saartaan, commenti kasoo bixisiin, asxaabtiina u share garaysaan. haddaa weli subscribe bixina fadlan subscribe dheh, subscribe-ka free waaye. haddaa rabtid waxaa video kasoo suubiyo commentiga hoose igu soo qor, ballan waaye waan kasoo suubinaa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen. waxaa noo ballaneh videogan videoga ku xigo, ballanteenan waa caafimaad iyo muruq.